isagul gul magalaw geesiyo wangereto geeka gul malhela isagul gul magalaw geesiyo wangereto geeka gul malhela gashandigano madikardido gulufka kiido alxamdulilah walqasaare ee waxa ku deeray ciidamada dawladda Majaraan oo weeraradii ku dhigay sida goof gaduud iyo doynuunay nimankii dhagar qabayaalka hay marka wala socday xaaladii guud ahaanba wala diyaar garoobiyahayti meelaasna gacan adag ayo ka deerti marka hoob iyo dadku ku adkaadaan sidii isin siin deegaanadaas la wareega fadeen in suur galo wayti in deegaanadaas la wareegeen rabitaan soo hayti in iyo qobsadaan doynuunay iyo goof gaduud balse wal fashari waan wayba mahadle ilaahi marka la maan ciidamadaas oo dadaalka badan suubiyaan oo aan dibna in isku caabiyaan naqana insha Allah hadana wayba ka sii guda jiraan ciidamada iyo fariismooyinkii iyo ha ku duuleen in iyo deeraan sidii isin la socotaan shalay batan galbihii la deeriyahayti deegaanka goof gaduud Shabeelow oo iyo deeraan ciidamada Niisa Koonfur Galbeed iyo howlgalla adagna meelaas ha ku fuli insha Allah had saacado hadareeron wayba deeri doonaan deegaanka kale sidii sin la dareertan baryaalku wayba jiray howlgalla iyo fuliyayeen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya qayb iyo shaqadiisan sida booliiska gaarka ciidamada nabad sugidda ee Niisa ee Koonfur Galbeed marka alxamdulillah dagaaladaas iyo howlgalladaasna guulo badan la ku deeri sida isin ku warqabtaan sida damboyti shalay dowradii ciidamada wayba galeen tuulo at least in jarta degmadu Baydhabo 35 kilomitir halkaas oo howlgallo ku fuliyeen oo nimankii nabadiidka ahay dhibaato badan in ka jeesadeen fariisamayo meel kala hayaan waana kula wareegeen iyo waxa ku qobadi dad nool iyo qalabka iyo isticmaalayeen sida gaadiidka oo tuulooyinka iyo ka isticmaalayeen mootooyinka marka alxamdulillah guulo badan la ku deeray insha Allah way barajayaan hoob ilaahay waqtiyada hadareerana in iyo deeran ciidamada booliiska gaarka ee Koonfur Galbeed iyo ciidamada Niisa ee Koonfur Galbeed deegaanada ka dhow degmada Baydhabo inay howlgalla adag ku fuliyaan si lan xaqiijiyo amniga magaalada Baydhabo deegaanada haanol oo weerarka la qaaday iyo haano una jawaab celin ciidamada anseedaan jiraan sida isin la socotaan waa barigi shalay ahayti markii oo weerareen oo iska deeyeen inay qobsadaan deegaanka doynuunay iyo deegaanka goof gaduud balse ciidamada jawaab adag ku biyeen waana ansuur galawayti oo ka jabeen inay la wareegan balse ciidamada duhuradii way badeerina hadana iyo rogaal celis oo nimankii weeraray goof gaduud iyo oo raacdaysadayaan iyo way bagaleen deegaanka goof gaduud Shabeelow marka halkaas iyo dhibaato badan nimankii cadawga hay in ka jeesadeen dad noolna ku qobadeen iyo gaadiidkii iyo isticmaalayeen dadkeenka sira midnimadiida shalgura fisna gogole garabange kerka gol hoob ku kuji asaga dadkeenka sira midnimadiida shalgura fisna gogole garabange kerka gol hoob ku kuji ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogtada